waayo salaada cishaa kadib in la sheekeeyo iyaduna waa makruuh waayo de qofku cibaadadii iyo dhikrigii buu hadal ka dambaysiinaya waxaana fiican qofka soo noloshiisuna inay khayr ku khatimanto xusnul khaatima uu la kulmo soo jeedkiisuna inuu khayr ku khatimo iyo wax cibaado ilaahay u dhaweynayo dhikri ilaahay marka haddii salaadii cishaa kadib uu soo jeedo uu sheekeeyo soo jeedkiisa wuxuu ku khatimay hadal haddii uu waxa weeyaan hurdada kuba dhintana hurdada sheekada ka dambaysiya hadalka wuxuu noqonayaa qof noloshiisiiba ay ku gabagabowday hadal iyo sheeko ولهذا markuu salaada cishaa tukado inuu iska seexdo weeye qofku maxaa laga soo reebay waxa laga soo reebaya wixii dan ah qofkii inuu ku soo jeedo waxa dana maxaa kamid ah cilmi waa akhrinaya ama qofku uu dhageysanayo bukhari sahihiisa kitaab ilmiga u baabaystay baabu samari bil ilmi ba'da al isha in ilmi lagu soo jeedo cishaa kadib waxa kamid ah dan gaara ama dan guud oo muslimiintu ay leeyihiin nabigu kaleey salaatu wasalaam habeenada qaar kood isaga iyo Abu Bakar iyo ba kulmi jiray bacda salaat al-isha oo in badan ka wada hadli jiray waxyaabo danaha diinta iyo ummadda ku saabsan waxa kamid ah qofkii waxa uu yimid salaam qof martiya qofka martida ahi de xoogay qurbu dareemaya wuxuu u baahan yahay in loo wehel yeelo hadaad qofkii martida ah salaada cishaa marka laga baxaba inta xashadu soo dhigtaa tiraado hay seexo ikraamu dayfki maaha maamuuskii martida nabigu kaleey salaatu wasalaam uu yiri man kaan yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyukrim dayfahu in waxoogay marka de qofkii loo wehel yeelo oo la soo yara jeedo oo loo yara sheekeeyo ayaa fiican saasoo kale ninku markuu gurigiisii tago inuu markiiba sariirta isku tuuro intuu casheeyo ama horaaba u casheeyay oo dadana halka ka khooriyo iyadana cishradii wanaagsanayd la dhaqankii dumarkee wanaagsana kamid maaha waliyaada nabigu kaleey salaatu wasalaam sayno arki doono ana markuu cishaayiga tukado xaaskiisa xoogay uu yara sheekeyn jiray kadibna waa seexan jiray rasuulku kaleey salaatu wasalaam waxa marka la diidaya de waa soo jeedkan aan macnaha lahayn maanta waxa arkaysaa dad marka cishaayiga tukadaan marka dib u tagayo hudheelada iyo maqaaxiyaha oo halka ka sheekeynaya waxaan macna lahayn dhalinyartu inta badan kubad bay ka sheekeynayaan team hebel baa badiyay iyo team hebel baa laga badiyay waxaan adduunyadana wax ku kordhinayn aakhirana sahay aanu noqonahayn dadka qaar siyaasad bay ka sheekeynayaan iyo dawladii baa saa sameeyay madaxweynaha baa saa sameeyay waa khaldiye kaas iyo sida in la yeelo ma yahayn iyo hawlan loo diran bay ku mashquulsan talooyin cidla ku dhacayo biyo culdaanshay ay maqaaxida ka jeedinayaan meel la aan gaadhayn dadka qaarna wax ka sii xun bay ku mashquulsan yihiin waxa laga yaabaa inay riwaayad iyo heesa iyo muusig iyo wax inay tagaan baa dhici kartaa macaasiba de salaada cishaa kadib inay galaan ta ugu foosha xumina waxa weeye waan idin sheegayaa qof daaciye ama talib cilmi ah oo salaada cishaa markuu tukado maqaaxida tagaya halka ka sheekeynaya maqaaxidaas hal maqaaxida ka doonaysa xulay shaaban ka soo yara cabaya haddaad shaa gurigaaga ka cab haddaad u baahatay maqaaxida inaad ka cabtana dee ka cabo iskaga tag maqaaxida ka fadhida waqtigaaga baad dayacaysaa hadigii iyo sunnihii nabiga kaleey salaatu wasalaam baad khilaafaysaa dadkii baa kugu dayanaya ogow dadkan caamada sheekada kula jiibinaya ku camiraya hadhow way kugu caayaan waxay oranayaan markaas wadaada soo ka markuu cishaaya ka soo baxo siyaasadda nala falanqeeyo maqaaxida nala fadhiista is-ilaalin dheeraada buu u baahan yahay qofka daaciga iyo qofka talib cilmiga oo dadka kale inuu iskala mid dhiga ma aha ogowna haddaad aragto طالب العلم maqaaxiya fadhiista oo maqaaxiya ka sheekeeya ama bacda العشاء noqoto ama waqti kale baa noqotee nin la soo hayo weey meel buu ku socdaa ninkaas maalinba maalinta ka dambayso qalbigiisu sii qalalaya maalin dambe waxaad arki isagoo dacwadii ka hadhay cilmigii ka hadhay
hadduu doono afkaar kale iyadoo ay gashayoo wax kale uu ku hadlayo baad arki doontaa waa bidaayat linxiraaf wa min asbaabihi leexashada bilowgeeda weeye iyo asbaabta leexashada mid